taageerayaasha xisbiga maxaafidka ee kulmiye ayaa maanta u lahaa ololaha doorashada golayaasha deegaanada Somaliland ay taageerayaashiisa magaalada Oodweyne isugu soo baxeen barxadda hore ee xafiiska dhexe xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Oodweyne waxaana halkaasi khudbado uga jeediyay taageerayaal aad u tiro badan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Oodweyne maamulka gobolka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Oodweyne oo ugu horeynba halkaasi kala hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee saaka isu soo baxay ayaa ku dheeraaday amaanta xisbiga kulmiye isagoo taageerayaashana ka codsaday inay codkooda siiyaan musharaxiinta xisbiga kulmiye waxay maanta qabatay say dalka u horumarisay barwaaqada gaarsiisay iyo dhibcooyinka ay horseeday waa garanaysaa cid kasta oo aan maanta way garanaysaa iyadoo maanta jirtay laba sanadood iyo badh ayay xukuumadihii hore ka horeeyay afarta sanadood afarta xukuumadood ka horeeyay ee 20 sano dhow haystay ay labada sano iyo badhka ay ku dhaaftay wax qabadkeedii oo aanay maanta cid walba aragta maanta halka marxaati ka hooyooyinka soo taagan ee carruurta shanta iskuulka u dhigan jirtay ee maalin walba macallinku ku soori jiray ee lacagta u weydiin jiray iyadoo giraankooda baadi doonaysa ay carruurtooda ay soo weeban jirtay qaar ka mid ah xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay taageerayaashooda inay codkooda la garab istaagaan maalinta codeynta salaanka bacdi anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta golaha deegaanka xisbiga kulmiye markii aanu aragnay xagga dhibaatada maamulka ka haysata dawladda hoose waxaan u soo gurmanay inaanu ka qayb galno si aan u sabata bixino degmada Oodweyne ayaan u soo galay maamulka caafimaadka aan ka shaqayn doonaa caafimaadka biyaha nadaafadda iyo cashuurta oo soo qaadno oo cid kala qaadin sidii hore ay u sheegeen musharaxiintu wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Marwo Nimco Xuseen oo soo afmeertay khudbadihii mas'uuliyiinta kulmiye ayaa si qoto dheer uga warbixisay waxqabadka xisbiga kulmiye waxa tartamaya laba xisbi iyo 5 urur waa 7 runtii haddii aanan indhaha la iska tuureyn kulmiye labada sanadood iyo badhka uu hayay talada waa garan kartaan ama waa la dareemi karaa waxa isbedelay dareemi kartaan sidaan idinku soo noqnoqdo ee aan mar walba idin la joogo haddii aynu idinka dib ugu noqono isbitaalkeenu wuxuu ahaa goob laga hadlo oo khayriya maantana waa isbitaal ha iskaba tamayaraade ummadda u shaqaynaya oo adeeg badan runtii qabanaya maanta uu dhakhtar ka howlgalo degmada ololaha maanta xisbiga kulmiye ee magaalada Oodweyne ayay si weyn uga dhex muuqdeen gaadiidka dawladda iyo waliba mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka Oodweyne waxaana si habsami ah uga socda magaalada Oodweyne iyo guud ahaanba gobolka Daadmareed ololaha doorashada golayaasha deegaanada Somaliland oo galay maalintoodii saddexaad Cabdikariin Maxamed Jaamac telefishinka caalamiga Universal Oodweyne